caruurtaada habeenkii buugaag ma u akhridaa caawa waxaanu la kulmaynaa Faadimo Ibraahim oo ah macallimad iskuul oo degan magaalada London waxayna sidoo kale af Soomaali ku qortaa buugaagta caruurta buugaagta oo ku qoran Soomaali iyo af Ingiriisi waxay caruurtu ka bartaan dhaqanka Soomaalida waa tan Faadimo oo macallin ah oo nooga waramaysa buuga ay qortay magacaygu waa Faadimo Ibraahim waxaan ahay macallimad waxaan qoraa buugaagta caruurta oo af Soomaali iyo English ah waan arkaa in badan caruuraha sida wax loo barayo sida wax loogu akhriyo marka sidaa darteed waxaan jeclaaday inaan buugaagta Soomaaliga inaan soo dhexgeliyo iskuulka si caruurahena u arkaan wax dhaqankoodii iyo luqadoodii hooyo wata ay xambaarsan inay arki karaan ayagana waxaan qoray 3 buug hadeer buugga ugu horeeya waxaa la yiraahdaa hooyo iyo aabo buugga labaadna waxaa la yiraahdaa awoowe iyo buugga saddexaadna waxaa la yiraahdaa buugga ciida oo ka hadlaya maalinta ciida waxa aan qabano iyo waxaan sameeyno waa in aan masjidka tagno waxaan buugaagtan u qoray caruurta yaryar ee soo koraya aniga ahaan marka soo korayay maan haysanin buugaag oo af Soomaali ku qoran oo caruureed ah maadaama hadda weynahay oo ciyaal haysto waxaan jeclaaday inaan u sameeyo buugaag ay akhrisan karaan oo wixii aniga igu dhacay buugaagtayda waxa ay yaalaan iskuulada Ingiriiska waxaana muhiim u tahay ilmaha Soomaaliyeed inuu arko buug kalarkiisa qof leh oo ku qoran yahay wax Soomaalinimadooda iyo dhaqankooda ka muuqda waxaan jeclaan lahaa hooyooyinka in ay caruurtooda akhriska ugu bilaabaan yaraan because yaraanta markaad ugu bilowdo inaad wax u akhrida ilmaha ha ahaato luqadiisa hooyo ama ha ahaato luqadaha kaleba waxay ka caawinaysaa hadhowta hole markuu iskuulka noogu yimaado isagoo wax akhriyi kara ama isagoo wax fahansan wuxuu akhriska yahay inay u fududayso waxyaalihii kale uu baranayay ee waxbarashada ku saabsanaa ayaan idin dayaxi ku soo baxay waalidkay qaaliga ahaa runtii waxaa farxad gelinaysa inaan arko hooyo yar oo hadda ilmo yar haysata oo luqadeedii hooyo iyo luqadii kaleba uu ilmaheeda buug ugu akhriyi karto qurux badnaan lahayd inaan haysano buugaag badan oo ku qoran afkeena buugaagtan hadeer qoray waxaa lagu turjumayaa luqada kale laakiin still af Soomaaliga nagu ku jiraya mar walba uu daba soconaya waana qurux in buugaagtaydu gaaraan adduunyada oo dhan oo hooyooyinka oo dhan meel kasta ay joogaan ay u akhriyaan caruurtooda